$11 milyan ayay akoonkeeda ku shubatay. waa tuma gabadha Soomaaliyeed ee qaabka caqliyeysan u dhacday dadka caanka ah ee LA ku sugan gabadhaas oo laga hadalhayo dhammaan baraha bulshada. And I bought her a dress because she had no clothes. And I'll say, she's like, okay, Ricky, I'll pay you back. magacaygu Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada. waxaan ka hadlaynaa Safiya Nuur oo maalmihii ugu dambeeyay laga hadalhayo baraha bulshada. gabadhan lagu magacaabo Safiya Nuur waa Soomaali Canadian ah. Canada ayay ka tagtay waxayna aaday USA khaasatan LA. ujeedada safarkeeda wuxuu ahaa inay ku taajirto ama lacag ku hesho qaab caqliyeysan oo aad u fudud. wayna ka dhabaysay ujeedada safarkeeda oo akoonkeeda waxay ku shubatay $11 milyan. haddaba sidee ku dhacday? Safiya Nuur waxay imaaday Los Angeles ama LA. LA waa magaalada beeska ama deegaanka u ah dhammaan dadka caanka ah sida musicianka ama fanaaniinta, aktarada filmaanta jilo, bilyaneerada iyo dhammaan dadka lacagta haysta oo magaca leh. meeshan LA ayaa deegaan u ah. Safiya Nuurna waxay ku fakartay meesha kaliya oo ay lacag si fudud uga sameyn karto inay tahay magaaladaas LA. lacagteeda ugu horeysan waxay ka sameysay wadooyinka LA. intee wadada istaagto ayay fiirsanaysay qofka isleedahay wuu ladan yahay oo waxaad ka heli kartaa lacag. waxayna u sheegaysaa dhibaatooyin ayadoo dhehaysa waxaan u baahanahay maanta lacag aan ku qadeeyo ama lacag aan meel ku seexdo. lacagii meelahaas ka heshay ayay isku aruursatay. ayada ayaana dib iskugu celisay lacagihii oo isku qarash garaysay. waxayna soo gadatay dhar aad u qaali ah. waxayna isku ekeysiisay qof ladan oo lacag leh. meesha ay ka fakaraysa ayaa meel dheer ahaa oo hami weyn ayay lahayd oo ma aysan ku qanacsanayn lacagahan yaryar oo ay helayso. kadib waxay imaaday meelaha ay ku kulmaan dadka caanka ah sida meelaha ay ku qabsanayaan xafladaha ama kalaabiyada iyadoo ku labisan labis qaali ah oo qofka arka uu isdhahayo qoftan way ladan tahay oo lacag ayay haysataa. dadka caanka ayay ka agdhawaatay iyadoo hadba qof u dhoola cadeynayso oo la qoslayso. qof ay isleedahay wax ayaad ka heli kartaa ayay gooni oo la baxaysaa. waxayna u sheeganaysaa dhibaatooyin shakhsiyadeed oo haysato sida inay dhahdo LA ayaan safar ku ahay oo hotel ayaan waxaan wada deganan wiil aan qaraabanahay. wiilka aan qaraabada ahayn ayaa idhacay oo wuxuu iga qaatay lacagahayga iyo dhammaan boorsadeeda. caawana meel aan seexda ma haysto ee waxaan kaa rabaa inaan adeemiso lacag $5,000 ama $6,000 ah si aan hadhow kuu siiyo. qaabkaas ayay dadka oo la hadlaysaa. qofkana waxa uu isleeyahay qofkan labisan oo shidan lacag ayuu haystaa oo dhibaatadaas ayaa qabsatay. kadib lacag ayay deeminayaan inta ay u sheegatay. kadib marka ay lacagtaas hesho meelo kale ayay aadaysaa ayadoo qaabkaas dadka ku dhacayso. dadka qaarkoodna waxay ku dhihi jirtay hooyaday ayaa dhimatay oo lacag $5,000 ah ayaa la iga rabaa lacagna ma haysto ee ideemi hadda dhibaatooyin ayaa haysato. ilaa ay gaartay inay sheegtay inay uur u leedahay fanaan caan ka ah waddanka USA oo lagu magacaabo Jack. gabadhan arrinteeda waxaa fashilay qof caan ka ah Twitterka. waxa uu soo dhigay tweet uu leeyahay waxa ay dhacday gabar lagu magacaabo Safiya waxayna i weydiisatay lacag deen ah oo $5,000 ah. waxayna sheegtay inay u baahan tahay lacagtaas si ay ugu duugto hooyadeed ilaa haddana lacagti kama hayo. qoraalkaas uu ninkan Twitterkiisa ku soo qoray waxaa arkay dad badan oo ayagana sidaan oo kale loo dhacay. dhammaan dadka ay gabadhan dhacday Twitterka ay ku soo qoreen qoraallo ay ku sheegayaan gabadhaas inay tuuga tahay oo lacaga badan ay ka dhacday. waxaana loo sameeyay hashtag ah Surviving Safiya. All the time through PayPal. I've sent money to people all over the world through PayPal. And that is not the fucking case. But I let that shit fucking slide because I keep fucking playing with me. I will file a police report and make sure that you never step foot in the United States. lacagihii dadkaas ka dhacday oo dhan haddii la isku geeyo waxay gaarayaan $11 milyan. dadka baraha bulshada isticmaalan waxay u kala safteen laba koox, kuwa Safiya taageeray iyo kuwa ka soo horjooda. kuwa Safiya taageeray ayaa dhahayo gabadhan qaab caqliyeysan ay dadkaas ku dhacday oo waxay dhacday dad caan ah oo akoonadooda uga buuxa malaayiin dollar. waxay ka dhacday $2,000 ama $3,000 qofkiiba iyadoo lacagahaas u dhacday kaliya inay ku noolaato nolosheedan ay ku dhisato. halka kuwa Safiya ka soo horjooday ay leeyihiin gabadhan waa tuug ee hala soo qabto. intaas ayaana noogu eg tahay muuqaalkeena aan kaga hadalnay gabadhan Soomaaliyeed ee dhacday dadka caanka ah akoonkeedana ku shubatay $11 milyan. haddii aad channelka ku cusub tahay soo dhawow subscribe noo dhisay ee dhiirigelin ugu noqoto. waqtigaagana aad ku mahadsan tahay. She was in Vegas. She had no China all the time through PayPal. I've sent money to people all over the world through PayPal. And that is not the fucking case. But I let that shit fucking slide because I keep fucking playing with me.